Amiirka Guud ee ay yeelanayaan beelaha Biniin Axmed ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Burco waxaana soo dhaweyntaasi ka qayb qaatay salaadiin cuqaal waxgarad dhalinyaro iyo haween qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo waxgaradkii kala duwanaa ee soo dhaweynta u sameeyay Amiir Maxamed Siciid Xasan oo ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda xilligan uu u leeyahay amiirku waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa Amiirka Guud ee beelaha Biniin Axmed Amiir Maxamed Siciid Xasan Faarax waxaanu ku leenahay Amiir ku soo dhawow waxa weeye beeshaadii ku soo dhawow gobolkii ragga ku soo dhawow waxa weeye gacmo furan beesha Biniin Axmed ee xagga culimada ah waxaanu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo wada shaqayn wanaagsan insha Allah anagoo mid ah waxaanu ka mideysanahay waxa weeye beeshaanu ka soo jeednay waxa weeye waxgaradkeeda iyo culimadeeda inaan insha Allah taala ku soo dhaweyno inta halkan joogtay iyo inta naga maqanba oo ka mideysanahay insha Allah taala dhaqameedkii dhalinyaradii odayaashii iyo cuqaashii dhammaan tog dheer oo dhan maanta waxay soo dhaweynayaan Amiir Maxamed Siciid Xasan oo ah amiir dhalinyaro ah halkan maanta waxaan ku leenahay bulshadaadii oo ilaa xalay ku taagneed oo ku sugaysay Amiir waxay ku leedahay soo dhawow baad runtii soo gashay iyo tabع laxaad weyne haddaan 10 su'aalood Amiir kaaga tibixsiiyo dadku ilaa xalay halkaas u tubnaa aatix galisaani garabkaaga inay taagan yihiin lagu tusaaleeyay taariikhda gali soo dhaweyntii u qaraway Axmed Raxiim anigoo ah caaqilkayse caaqil Axmed Xaashi waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer oo gobolkayga ah Amiirka Amiir Maxamed ayaan soo dhaweynaynaa Maxamed Siciid Xasan insha Allah taala Amiirkana waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan waa min dhalinyaro weeye waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baraynaa inuu xilka Ilaahay u fududeeyo insha Allah waxaan ku soo dhaweynaynaa amiirka qaaliga ah Amiir Maxamed Siciid Xasan oo ku soo biiray saaxadda dhaqanka waa rajaynaynaa waana ka filaynaa inuu wax badan ku soo kordhin doono gobolka sida ragguba ka dhawaajiyay looma kala hadhin maanta waa aragtan xilliga la taagan yahay dadka taagan gaadiidka taagan waxaan leeyahay ku soo dhawow Amiir gobolkaagii hooyo shacab weynaha reer Togdheer iyo guud ahaan dadka degmada reer Burco waxaanu bacadkan u taaganahay soo dhaweynta amiirka dhalinyarada ah ee cusub Amiir Maxamed Siciid Xasan Maxamed Siciid waxaan leenahay Amiir waxaad arki jirtay dad badan oo beela gaari soo dhaweynayaan oo ay salaadiin u yihiin adiga halkan waxa kugu soo dhaweynaya dhammaanba dadka reer Burco iyo dadka reer Togdheer waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii Amiir Maxamed Siciid Xasan halkan gobollo badan baa jooga gobolkii Sanaag baa jooga oo Sool baa jooga oo Togdheer baa jooga waxaan ku soo dhaweynaynaa dhalinyaro ahaan waxaan leenahay soo dhawow Amiir soo dhawow ku soo biir waan u baahnayn dhalinyaro oo daayaro oo madax dhaqameedka ku soo beerta habar jeclo oo ay wax kasto ay tabanayaan dhalinyaradu u soo gudbay iyaga isfahmaye maadaama waayeel hore loo dooran jiray waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan Amiir maanta kugu soo dhaweyno gobolka Togdheer kulay cuqaal iyo salaadiin baa hadlay aniga amiirku xagga dhaqanka marka laga yimaado xagga samafalkan isku baranay oo waa shakhsiyaad aad uga shaqeeya samafalka oo in badan nagala qayb qaatay arrimaha samafalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aan ku afdaya afka dhalinyarada inaanu maanta ku soo dhaweyno waana ku faraxsanahay 100% adoo nabada iyo anagoo nabada inaad noo timaado gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray Amiir Maxamed Siciid Xasan isagoona uga mahadnaqay soo dhaweyntaasi ballaadhan ee ay u sameeyeen bulshada gobolka Togdheer aad waxaan kale aad iyo mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadnaqayaa ragga iyo dumarka saaka soo kalahay aan xalay seexan liiga ahaada degdeg baa jiray dad badan baanan u sheegin waxaan leeyahay raalli ahaada waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin jazaakallahu khayr waxaan idhaahdo ma garayo kale magaalada Burco de barasaab fiican Maxamed Diriixad leeydinkana way ka muuqataa ilaahay sadambigiisa ha dhaafo waxna magaaladan de gobolka ragga leeyahay laakiin waa gobolkii dumarkiisna uu yahay inal Soomaaliyeed oo buug iyo qalin loo dhibo oo dabarka laga furo gobolkan baa ugu horeeyay iyadoo ay dil tahay inal Soomaaliyeed buug iyo qalin qaadato gobolkii dumarkana waaya kii raggana waaya kii mujaahidiintu yahay kii abwaanadu yahay wax walba inaga iska leh gobolkeenan maanta ku taagan farta ku taagan fooshi siyaasadda taagan oo iska ilma rogonaysa waxa la dulqaad hala muujiyo waligeed dulqaad baynu gobolkeenu lahayn
ilaa ingiriis gobolkeena fartaa lagu soo fiiqayay siyaasaddu hadday soo dhawaato inaga ilaaliya gobolkii togdheer inaga eega gobolkii ragga markaa dulqaad ha la muujiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukuumadda inta waa dhan ilaahay inoo barakeeyo ayaan le cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco